su-aasha ugu dambaysa gabagabada ka hor waa su-aal soo noqnoqota horeyna looga hadlay sheekh Mustafa loo jeedinaya ama la soo magacaabay waxaana loo soo magacaabay baa meesha ku jirta masaayishan uu ka hadlaa marka wadaadada hulaha way kala leeyihiin wixii dumar iyo islaamo iyo xaafada iyo ku saabsan Maxamed Idriis hal loo aado wixii masaa'il cilmiga iyo casriga iyo diinta iyo iswaafajintaana waxa iska leh sheekh Mustafa iska leh wixii quraan iyo hawlihiisana waxa iska leh Sheekh Rashid ba iska leh Allah ybarik fiik doctorku isagu inta waxaan u maleynayaa inuu qayb ku leeyahay Allah idin barakeeyo sheekhana masalada waa mas'ala iska soo noqnoqotay waxay leeyahay wuxuu leeyahay saa'ilkeenu quraanka wuxuu sheegaa dhulku inuu fidsan yahay qoliyahan wuxuu ahay falag culumta falaga waxay sheegaan inuu dhulku wareegsan yahay ama kubad yahay marka la quraanku wuxuu sheegaa dhulku inuu fadhiyo iyaguna waxay leeyihiin dhulku waa socdaa marka maxaa say isu waafaqaysa si kooban ayaan uga rajaynaa insha Allah taala sheekh inuu jawaabo jazakallahu khayran بسم الله dhulku waa fidsan yahay waana kurawi labadaba way uu fidsan yahay daweydinka arka waa like a pole waliba waxay yidhaahdaan waa sida beedkoo kale inuu sidaa yahay waa mas'ale iska fudud waayo dayuuradda maanta galbeedka u duusha barigay kaaga imanaysaa hadaynu xaggaa u duullo barigaynu ka soo geli karnaa waana mas'ale mushaahada hadda yani maaha mas'alo u baahan adiladii cilmiga ahayd ee la baari jiray caynka waa mas'ale mushaahada yani wax la isweydiinayay dayax gacmeedkii la saarayay nimankii muslimiinta ahaa culamada muslimiinta la isugu yeedhay markaa niman muslimiina raacaya 24 saacadood 16 jeer bay dhulka kusoo wareegayaan markaasay u tukanayaan bay wadaadadu ka fatwoonayeen saacad iyo badh kasta habeen iyo maalin buu dhammaynaya saacad iyo badh kasta habeen iyo maalin buu dhammaynaya markaa saacad iyo badhka ma 5 salaadood baa la tukanayaa mise 24 saacadood baa la sugayaa mar la tukanayaa waayo ninkan 16 jeer dhulka kusoo wareegaya waxaan uga dan leeyahay markaa dee waa mas'ale mushaahada waana waxyaabahay culamada muslimiintii waagii hore taqriiriyeen waxaan filayaa القرن السابع أو السادس عند العلماء المسلمين waxay ahayd masaa'ilka caamka aan murankuba ka jirin ee la wada rumaysan yahay waa markaynu kuraweynimada ka hadalno waa jiraan dooda yar imika lagu soo qoro website-yada iyo meelaha kan oo rag dan leh ay waxyaabo yar la sawiraan oo golob yar oo cabcad yar halkan marayso oo saan socoto laakiin waxay u badan tahay inaan saxahay taasi waa mas'alada koowaad talabaad maxay ahayd sheekh ilaahay socodka iyo taagnida socodka iyo taagnida uu soconaya waliba dhowr socod oo kale nooc soconaya socodka qaarkii waa waxay fusuushu ku samaysanto xagaa iyo jiilaal iyo gu iyo waxa kan socodka qaarkiina waa waxa habeeniya maalinta ku samaysanto yani inuu on its access inuu ku wareega waa waxa keena habeeniya maalinta yukawiru leyla cala annahaar baa ilaahay tilmaamaya takwiirka ma taqaana takwiir alcimaama waa sidaa sheekhu imika u duubay markaad cimaamada saa u duubto ilaahay wuxuu leeyahay habeenkii maalintaa isku duuban subxaana waa isku duuban yihiin waayo habeenku markuu sii baxaya maalintu soo gelaysa xagga kalena maalintii baa kasii baxayso habeenkaa soo gelaya waa takwiir takwiirkuna wuxuu ku yimaadaa bay leeyihiin wareegga dhulka wareegaya calaa kulli xaal masaa'il aynu hadda waqti badan u hayno adiladeeda cilmiga ama nusuusta ay culamadu daliishato laakiin waxaan leenahay un culamada muslimiinta ee caamka ee masaa'ilka kan ka warrama qadiiman wa xadiidan
labada masalabada way sugayaan wallahu aclam